waa hagaag isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa wuxuu ku baaqay in la dejiyo xaaladda magaalada Baydhabo xiisada taaganna wadahadal lagu xalliyo guddoomiyaha ayaa aragtidiisa xaaladda Baydhabo iyo muranka siyaasadeed ee Soomaaliya ka taaganba wuxuu uga warramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan runtii koonfur galbeed arrinteeda mar horaan ka hadlay aniga waxyaabaha maanta dhacayna waa ka xunnahay dhowr jeerna waa ka digay inay saan wax u dhici doonaan waa la iska qiyaasayay marka ugu horeysa waxaan u tacasiyeynayaa inta ku dhimatay inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay soo kabasho degdegaan idinka rajaynaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed khaasatan magaalada Baydhabo waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan oo dagaal kale iyo waxaani hore aanan u socon waa la ogyahay magaaladu way go'doonsan tahay oo maanta annaga waxaan joognaa magaalada Muqdisho oo 240 kilomitir u jirta Baydhabo jidka uu xiran yahay looma gurman karo oo haddii loo baahdo daawo ha noqotee ama wixii kale oo tasiilaada loo baahdo meel la mariyo ma laha meesha keliya oo la isticmaalo maanta waa hawada kore oo dadka shacabka diyaarado yar ay soo raacaan meel walbo gobolada ah marka runtii waxaan ugu baaqaynaa culmaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda South West State xoog inay saaraan in dagaalka uu halkaasi ku hakado wixii qalad oo dhacay oo ku saabsanaa qabashada Mukhtaar Robow tafaasiisheeda iyo waa raadin doonaa cidda qaladkaad iska lahaydna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo dadka aaday u tabardaran yihiin oo waqtiyadan dambe oo dhanba waxaa haystay runtii dagaalo go'doon xoog badan ayaa hayay marka waxaan leenahay arrinkaasi waxaan ugu baaqaynaa inay wixii socon lahaa joojiyaan laakiin guddoomiye khilaafaadada siyaasadeed ee waddanka ka taagan baa la leeyahay salbay ku leeyihiin colaada ka socota Baydhabo ama waxaan ka dhacaya Baydhabo marka iyadoon xal laga gaarin khilaafaadka guud iyo siyaasadda la isku haysto Baydhabo sidee nabad ku helaysaa marka horta waxaan leeyahay Soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqayn jirtay Soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay waddanku isteedyo ayuu leeyahay talada dadka oo dhan ay ka wada dhaxaysaa marka dhammaan dadka ay khusayso talooyinkaasi ama ha aadan isteedyada ama dowladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaabo noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah waddankana wuxuu sii aadayaa meel kale u aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa in runtii Soomaaliya si degdeg ah way u heshiin kartaa si degdegna way isu dagaali karaan marka in arrinkaasi mar walba laga digtoonaado carabta ayaa waxay tiraahdaa alcunfu yulad alcunf xoog mar walba xoog unbuu dhalaa marka waxaan dhihi lahayn mar walba xalka ha lagu dayo in wadahadal iyo wax walba lagu dhameeyo guddoomiye khilaaf baa taagan mooshin ku saabsan madaxweynihii laga keenay baarlamaankii wuu kala qaybsan yahay muran xoogan baa wadankii ka taagan dardaarankaaga iyo nabaddan aad ku baaqaysaa qayb ma ka yahay in xal laga gaaro mooshinkii madaxweynaha ka yaalay oo arrintaa la dhameeyo horta baarlamanka khaasatan golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaanadiisa waxay ka kooban yihiin 176 xildhibaan ay ka kooban yihiin marka waxay la tahay dhammaantoodna waa dad hadda raba inay wax hagaajiyaan maaha dad inay wax qasaan maaha marka wixii xal u baahan oo la xallin kara waxay la tahay guud ahaan way ka siman yihiin inay xalliyaan baarlamanka uu xalliyo marka marna uma arkaayo arrin shaqo ah in la siyaasadeeyo ama nooc kale loo bedelo marka waxay la tahay waxaan la xallin karin malaha baarlamanka in wax lagu xalliyaa loogu talagalay looguma talagalin in wax lagu dumiyo marka mar walba xal unbaa la raadin doonaa adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma iska aragteen arrintan horta baarlamanka wuu ka madax banaan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadoodaba wuu ka madax banaan yahay baarlamanka dee waa hay-ad ka madax banaan waa hay-adii dhashay labadoodaba marka shaqadiisna wuu u madax banaan yahay uma baahna marka is aragtiyo inta la fadhiisto wax laga yidhaahdo baarlamanka waxaa ka taliya 270 xildhibaan oo meesha fadhida ayaa go-aan gaaraysa guddoonka xitaa ma aha marka ayagaa ka doodayay go-aanna ka gaarayo marka laakiin guud ahaan waxaan ku xaqiijinayaa baarlamanka wuxuu u taagan yahay inuu wax xalliyo uma taagna inuu wax burburiyo haddaan ugu dambeyn su-aal ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo bixiyeysay warar sheegayey in
madaxtooyadii aad degneed lagugu go'doomiyey oo xildhibaana kuu imaan kari waayeen markii dambena aad ka guurtay arrintaa maxaa ka jira? waxay la tahay arrimahaasi waktigooda waa lasoo dhaafay, hadda wax dhib oo haddii haysta malaha.